wixii keenay allah og iyo dadka ka dambeeya iyo dowladda Jabuuti waxaan se isleeyahay waxa weeye sidaad sheegtayba xasanow dowladda xamar ka talisaana waa gebagebo ta kalena kama sii foga oo qudheedu way daciif bay tahay marka waxaan rajaynaynaa ilaahay inaan ka baryanaa gebagabada ay yihiin inay ka soo baxaan wax dadka Soomaaliyeed meeshay joogaanba jooga u qalma hase yeeshee waxa weeye su'aalahaynu isweydiinaynaa waxa weeye maxaa ka soo bixi kara maxaan ka soo bixi karin maxay dadka Soomaaliyeedna sugayaan saddexdaas su'aalood ayaan isleeyahay way maarayn doonaan waxa meesha ka socda walaal maxay kula tahay waxa ugu muhiimsan ee laga wada hadlayo ama ay tahaba in xilligan laga wada hadlo waxa laga wada hadli doonaa dee guntooda kuma jiro ma ogi laakiinse waxay u eeg tahay magaalada Muqdisho oo dowladda ka talisa waxay iyadu maskaxdeeda ku jirta in ninka Muuse Biixi la dhahay madaxda Hargeysa ka ah in la maamuuso mansabad sare la siiyo dowladda isagu maybe uu soo dhiso qaarkood siday ka hadlayaan laakiinse waxay ku khaldan yihiin waxa weeyaan xurgufta ka taagan Hargeysa iyo waqooyi ama Somaliland mawba qolooyinka ka imanaya Hargeysana waxa weeyaan yaan laynagu eedayn iyo ka wax diiday laakiinse u malayn maayo wax qancin kara dadka reer waqooyiga iyo dadka koonfurta Soomaalida ah inay iyagu qudhoodu keeni doonaan walaal Professor sidaynu ognahay wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland waxa ay soo mareen marxalado kala duwan meelo kala duwan ayaa lagu qabtay wadahadalkan hadda maanta ka furmaya Jabuuti maxuu kaga duunaan karaa kuwii ka horeeyay ilaahay wax walba wuu kari karaa oo waxaan kuwii hore ka soo bixi karin baa ka soo bixi kara laakiinse waa inaynu fahamnaa siday dowladnimadu u shaqayso haddii xataa waxay ku heshiiyaan wanaaga waa in Hargeysa la geeyaa waa in Xamar la geeyaa ilaa baarlamaanaha jira labada meeloodba baarlamaanadaasi ma ogolaan doonaan labada qof waxay doonayaan ma samayn karaan waxay keeni karaan ra'yi laga yaabo inuu dadka qanciyo ama una qancin marka ismalihii labada meelood tashiga yaala Xamar talada taala iyo Hargeysa talada taala ilaahay ka sokow u malayn maayo inay keenayaan wax lagu xaqabeelo labada meelood walaal laakiinse waxa muhiim ah in dowladda Jabuutina fursad la siiyo in badan bay Soomaali u dadaashay oo carta waatii keentay waatii ka horeysay markii qadalaasuhu bilaabmay 1990 ay iskugu yeedhay dadka Soomaaliyeed marka maamuuska ay bixinayso inay qadariyaan ay wax dadka Soomaaliyeed qanciyaan labadan qoloba ayaan rajaynaynaa inay ka soo baxdo walaal waayahay Professor marka ay timaado wadahadalladan Soomaaliya iyo Somaliland Jabuuti ma tahay halkii ku habooneed oo dabcan kaga wanaagsan meelo kale in lagu qabto waxaban xasan oo arkanaa wixii cartahay keentay laakiinse Muqdisho lagu fashiliyay waxay keentay Jabuuti oo kale in markii burburku yimid dad la iskugu keeno oo Xamar lagu soo celiyo marka waxay Soomaalida u taala jamhuuriyadda ka socota Hargeysa iyo Muqdisho ka socota ayay u taala inay qadariyaan walaalaha Jabuuti waxay Soomaali la doonayaan inay Soomaali midoodo in xaq lagu midoobo xaaraantii hore in laga baxo dunuubtii la galay in laga toobad keeno hadday iyagu dad wax yihiin qiimo leh iyaka maamuuskaasi ka midhodhalin lahaa laakiinse ahmiyadda walaalkay waxa weeye dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba min Raas Kaambooni ilaa Sayla waxay u haraadan yihiin maamul aan qabiilo ku dhisnayn maamul islaamnimo iyo Soomaali ku dhisan labada nin hogaaminaya labada meeloodna midkoodna ra'yigaasi ma curin karo walaal laakiinse waxaan filanaa inay fahmaan dhiilada iyo balambalka dadka Soomaalida haysta Hargeysa kuwa jooga iyo kuwa Xamar joogaba oo arrintaasi dadaal weyn ka muujiyaan oo una dhugnaadaan wanaaga dadka reer Jabuuti ay la rabaan Soomaali walaal